nin oday ah ayaa su'aal la weydiiyey su'aashaas oo ah adiga mar walba waad faraxsan tahay mar walba waad dhoola cadaynaysaa ee waa maxay sirta ku jirta markaas ayaa wuxuu ku jawaabay waxay tahay aniga waxaan ka xishoonayaa in aan murugoodo ayadoo nolosheeda oo dhan arimahayga oo dhan ay ku jirto gacmihii ilaahay subxaanahu wa tacaala maxaa ka qurux badan inaad aaminsan tahay arintaas oo ah lan yusiibana ilaa maa kataba allahu lana naguma dhacayo ilaa wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala noo qoray maahane wuxuu ilaahay noo doortay maahane ilaahayo waxaad adiga noo dooratay aad noo qortay ayaan ku faraxsanahay noona wanaagsan arintaas inaad aaminsan tahay maxaa qurux badan nolosha haddii ciriir yar aad dareentid murug yar welwel yar cabsi yar salaada u istaag waxaad dhahdaa waxay tahay ilaahayow xiriir la samay samada waxaad dhahdaa yaa allah innii masaniya dur dhibaata itaabtay yaa saaxiba alham ina alhama munfarijun abshir bikhayrin fa ina alfaarija allahu midka murugtahayo welwelka cabsida dhibaatada iyo murugtaas waa laga baxayaa sababtoo ah midka murugta dadka ka fayda waa ilaahay subxaanahu wa tacaala mar walba faraxsanow sababtoo ah noloshaada oo dhan waxay ku jirtaa ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmihiisa wallaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala haddii arrimaha dhan aa u dhiibatid marna ma khasaari